وهاجاك صاحبيال داوديال برنامجكي علاجي أها كسب سنة الجن العاشق أم المس العاشق قيبتي سيكو ودوحينو كغسو هذالني أسبابتا iyo qofka sida uu ku gali karo ee macquul ay tahay ayaynu kaga soo hadalnay maanta waxaynu kaga hadlaynaa qofka qabo jinnigan ama jinni caashiqan calaamadaha uu iskaga garan karo ama uu iskaga garan karo haddaan si kale u yiraahdo inuu waxan uu hayo uu yahay jinni caashiq calaamadaha ayaan maanta sheegaynaa ka hor inta aanan sheegin cilaajka maxay la balanteenu waxay ahayd in xalaqaad ay noqon doonto barnaamijkan yani xalqada koowaad asbaabta xalqada labaad calaamaadka xalqada saddexaad ee u dambeysana ay noqon doonto xalqada cilaajka iyo iskula tacaalidey iska daweynta aljinul caashiq balse waxaynu ka codsanaynaa fadlan haddii markii kugu horeysay channelkeena booqashadiisu ay tahay inaad subscribe saarato channelka sidoo kale gambaleelka furo si marka uu notificationka uu ku soo dhaco si toos ah aad noola socotaa anaga insha Allah wixii macluumaad ah iyo information ah iyo war kala qaadasho ah iyo ra'yi tusaale ahne xagaasi commentiga ayaynu ku kala qaadaynaa insha Allah calaamadaha qofka uu isku garan karo inuu hayo jinni caashiq waxa kamid ah hinaasaha badan qofka aad u hinaasaya gabar hadii ay tahay ama wiil hadii uu yahay يعني وحال قولي هي جينك هناسيهيسا وكبدن يهي وانا كدرن يهي متك آدنها marka hadii aad isku aragto dabeecado hinaaso ama maseer fara badan hadii aad isku aragto waa calaama min calaamaat aljin alcaashiq jiniga ma yaqaanaan ma fahmaan macnaha jacaylka iyo kalgacaylka ma fahansan iyagu waxay fahansan yihiin oo kaliya luqadda jacaylka ma fahmaan ee waxay fahansan yihiin maxaan ku raadaaye heesashada iyo xukunka heesashada xoogga ah qofka inay xoog ku heestaan oo kale inay xakameeyaan iyo xukumaan iyaga intaas ay fahmi karaan laakiin jacayl iyo mawadda iyo romantic waxaas iyaga shaqadooda ma ahan si ay markii ay u gaaraan xukunkan iyo heesashadan buuxdo qofka ay jecel yihiin ayna uga gaaraan maxay sameynayaan waxay adeegsanayaan dhammaan hababka labadaba oo labadaba maxaan ula jeedaa yani sasabashada iyo cabsi gelin qofka inay sasabtaan ama inay cabsi geliyaan labadaasay adeegsanayaan si ay yani ay u helaan rabitaankooda oo buuxo si ay u helaan sidaas daraaddeed marka waxaad arkaysaa in gabadha jacaylka uu hayo jacaylkan oo jinni caashiq uu hayo waxaad arkaysaa inay la ildaran tahay jacaylkooda inay la ildaran tahay oo ay gabadhu marmarka qaarkood sariirba ay saaran tahay calaamadaha hinaasaha ay muujinayso ama maseerka ay muujinayso oo kale way kala duwan yihiin waxa waaye gabadhu haddii la qabo iyo haddii ay gabar ay tahay ay ku kala gidisan yihiin ay ku kala duwan yihiin hagaag calaamadaha ilaalinta bikranimada gabadha haddii gabadhu ay tahay gabadha aan weli la soo guursanin oo bikra ah shaydaanka inta badan wuxuu isku dayayaa inuu ka hortago in weligeed aan la guursanin wuxuu sidan u sameynayana maxay tahay dhowr siyaabadood waaye wuxuu u sameynayaa ama uu ku sameynayaa inaan gabadhaasi aan la guursanin ama aan la soo doonanin siyaabaha soo socdo ayuu sabab uga dhigaya wuxuu sameynayaa wuxuu wejigeeda ka dhigayaa mid ka caraysiiya qof kasta oo doonaya inuu guursado kaasoo laga yaabo inuu u arko inay tahayba qoftaan bani aadam inaanay ahayn daanyeer inay tahay oo kale ama uu arko kale maxaan ku raadaaye afkeeda inuu ku jiro afqoloc afkeedii toosnaayuuba quluucinayaaba qofkii soo doontaa wuxuu u arkayaa gabadhaani inay iyada dhanba si kale ay u eg tahay ee aad ay u foolxun tahay oo kale ayuu dareensiinayaa wuxuu ku qasbayaa gabadha naftirkeeda oo jinni caashiqan u hayo wuxuu ku qasbayaa si qariib ah inay u dhaqanto inay dhaqsi xanaaqdo oo kale waxyaabo aan laga xanaaqin oo kale inay ka xanaaqdo oo kale
sabab yar awgeeda waxaad arkaysaa qofkii rabay inuu guursado hortiisii qofku caynaysaa hadalla idib daray ku kacaysaa si ay isaga fiijiso oo uga fogaado qofkan isaga oo kale arkaysaa taasina way dhacdaa waxaa kaloo dhacdo diidmada ayaa sidoo kale ka iman karta gabadha lafteeda oo waxay dhigi kartaa kuma rabi oo cad oo aanan geed loogu soo gambada aan lahayn sababtoo waxaa weeyaan qofka waxay ku arkaysaa ama waxay ku arki doontaa mid ka mid ah ciladaha aan soo sheegna sida wejigiisa ninka naftirkiisa wejigiisa inuu isbedelo afkiisa inuu qolocsamo oo kale ay ku arkaysaa marka sidaas daraaddeeda marka waxay gabdhaha noocaas oo kale ah caan ay ku noqonayaan astaamaha noocaas oo kale ah in guurka ay diidaan in qof walba ay la dagaalamaan iyo wixii la midka oo kale hagaag sidaas daraaddeeda marka gabadha waxay caan ku noqonaysaa astaamahan oo kale mana jirto cid mataqaanay mataqaanaa cid dhibaateynayso iyada oo yani isxakameyn karin arrinteeduna faruhu ay ka baxayaan hagaag jinniga jacaylka wuu xanaaqi karaa isla marka uu arko gabadhan haweeneydan oo loo qurxinayo ninkeeda aad u xanaaqaya jinniga marka uu arko in gabadhan loo qurxinayo ninkeeda aad u xanaaqaya wuu caroonaya wuu hinaasaya wuu maseeraya arkaysa waxay isku keenaysaa dhibaato wuxuu isku keenayaa marka uu abuurayaa dhibaato oo dhexdooda ah family problem waxa aynu dhahno ama aynu u naqaano ayuu sameynayaa marka ninkeeda wuxuu ogaanayaa dhibaatooyinkan inaanay dhammaad aanay lahayn joogto ah maalin walba maalin walba ilaa uu ka furo ninkan isaga ah saasuu luqunta u galaya marka waxay yidhaahdaan culammada sixru tafriiq sixirka qur-aanka lagu sheegay ee ahaa ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله سحر التفريق وحصوص قلايا وصوص إيمانا يا جن عاشقة أي هوس إيمانا يا مركا كاسن واجران جنك جعلك لبها أهاضو أما ددك أهاضو وحي سمي كران وحي كحري كران قفك وحي كحري كران نيك حاسك كحري كران xaaska ka xiri karaan taasoo ka hortagayso inay ninka iyo naagta ay isku dhowaadaan haddii marka isku dhowaasho u imaan waayo oo la isdamci waayo waa la isku caajisaa meesha waa la isku caajisaa waxaa imaanaysa gabadh inay tiraahdo niyo aniga guriga aabbahay kama soo weynin waxaa cuno nagu kala wad inay tiraahdo waa suuragal ah marka muxuu sameynayaa cajzi ayuu wuxuu ka gelinayaa xagga dhinaca galmada ayuu cajsi ka gelinayaa saasuu sameynayaa waxyaabaha kale oo uu samaynayo waxaa ka mid ah in ninka inuu caadi u yahay laakiin gabadha naftirkeeda xubinkeeda daranka ama farjigeeda ayuu wuxuu saarayaa xuub ama cad hilib ah uu saaraya si uusan ninka uusan u dhaafinba uusan meeshaas uusan u dhaafin oo kale ninka wax galmaa ma samayn karo waa calaamado lagu garto calaamadaha jinni caashir lagu garto waaye aaday u fara badan yihiin marka aaday u fara badan yihiin ayib gabadha marka arrintaas iyada murugay u keenaysaa ninka murugay u keenay gabadhii murugay u keenay labada qofood waxay dantu ay qasbaysaa marka inay kala murugoodaan oo kale waxyaabaha lagu ogaan karo waxaa ka mid ah calaamadaha waxaa ka mid ah qofka inuu habeenkii soo baxa habeenkii oo kale inay wax caadi ah ay la noqoto oo kale oo ka mid ah mataqaanaaye waxyaabaha caadiga dabiiciga inay la noqoto oo kale ya taasoo kale waxaa kaloo laga yaabaa inuu dareemo qofka joogitaan naf qolka in qof uu kula jiro oo kale inuu dareemo haween badan oo jinni qaba ayaa waxay dareemayaan in qolka naf kale ay kula jirto oo kale ay isdareensiinayaan oo ka soo dhacayo kale markay indhahooda furaan maahan hurdo maahan indhahooda furan cidna ma helaan markay indhahooda furaan ama saas idhaan cidna ma helayaan arkaysa qaarkood waxay sidoo kale dareemayaan raadraac meel kasta oo ay tagaan in la raadraacayo in la daba socdo in la daba joogo ay dareemayaan oo kale
sidoo kale rag badan oo jinni qaba iyagana sidaasoo kale waa la dareen oo waxaasoo kale dareemayaan. waxyaabaha calaamadaha loo garto waxaa ka mid ah hurdada xad dhaafka ah, qofka inuu aad u hurdo. maxaa yeelay rag iyo dumar badan oo qaba ayaa ka cawda hurdo xad dhaaf ah, isla markaana ay soo kacaan oo ay sameeyaan shaqo fudud ay sameynayaan, haddana isla markiiba waxay dareemayaan daal kale, markaasuu haddana seexanaya, mar kale ayuu u seexanaya. maxaa yeelay jinniga waa meesha keliya uu ka dareemaya inuu waqti la qaadan karo oo la raaxaysan karo qofka markaasi uu jecel yahay. arkaysan qodobka xiga waxaa waaye oo calaamadaha lagu garto in qofka uu ka fogaado xiriirka jinsiga ka soo horjeeda. macnaha gabar haddii ay tahay wiil inay xiriir la samayso oo dhan way ka fogaanay. wiil haddii uu yahay qofka qabane gabar oo dhan inuu xiriir la sameeyo waa uu ka fogaanaya. waxay kana ka mid tahay calaamadahay ka mid tahay. waxaa kaloo ka mid ah aragtida riyada oo lagu riyooda guurguur iyo wax saas oo kale ah. waxaa lagu riyoonayaa inta badan oo dadku ay ku riyoonayaan iyaga oo u dabaaldegaya guurkooda oo kale, dad aanay garanaynin ama ay garanayaan. labadaba waa suuragal inay ku riyoodaan. guurkaasi marka aad ku riyoonaysid adiga shaydaanka isaga rurune u tahay, balse adiga waxay kuu tahay mala awaal iyo riya kuu tahay, laakiin isaga wuxuu u malaynayaa inuu rurun uu ku guursado oo kale ayuu u malaynayaa. calaamadahaas iyo calaamado kaloo badanba waxay ka mid yihiin calaamaatul jinni ulcaashiqay ka mid yihiin. marka keliya hadda waxa inoo haray waa dawadana iyadana xalqad kale oo gooni ah oo separate mataqaanaa ah ayaan u samaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo. waana tii u dambaysayna noqon doontaa oo aan kaga soo hadlayna insha allahu tacaala. aadaa u mahadsantihiin muuqaalka mar haddii aad intaan soo gaarteen. subscribe, like, share ha hilmaamin. comment qurux badan inaad nala wadaagto qeybaha qoraalada ha hilmaamin. anigu waa macalin muuse, channelkuna waa Rio TV. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.